haddii ay fanaanad tahay jaceylkeeda waxay ku cabirtaa hees ninkii heesta loo qaadayna waxaa laga yaabaa inuu aad ugu farxo uguna faano saagiisa asaate muddo kadib waxa isla ninkii lagu garbaashaa hees kale waa caado beriyahan dambe caan noqotay in gabari ay dalbato in lagu ammaano hees si magaceeda ugu dhex muuqdo suugaanta Soomaalida talbaan u qabaa codkaaga horjoog iyo daawadkaaga najaxay ku bartaa jacaylka marka laga reebo in fanaankaasi uu ku luuqeeyay jalbada heeso ma jirto wax ammaan ah oo ka muuqda miraha heesta oo aanan ka ahayn baahihiisa gaarka u ah bal waxaad barbar dhigtaa ammaanta Xasan Aadan Samatar haddii fanaaniinta haatan nool ee hees ku amaanan gabari durbaba waxaa xigta inay ku garbaashaan mid kale kamar jacaylkan muddo dheer nabnabayay kolkii aad milgiisa muran uun kuba koobtay walow miraha heesta aanu lahayn fanaanka qaadaya heesta isla markaana aanay ka soo maaxinin maskaxdiisa haddana sida uu sheegayo Dirisla Cabdi oo kamid ah YouTuberada ugu caansan Soomaalida waxa heesaha qaar curiya muqayyilin afligu dable ah fanaaniinta Soomaalidu waxa weeyaan fanaaniinta kaliya ee shaqadoodu ahayn fanaanimo macnaha shaqooyin kale oo ka shaqeeyaan sababta ma garanaysaa sababtu waxa weeyaan lacagta ka soo qalaysa fanaanimada iyo heesaha ay qaadayaan kuma filno heer waxay gaareen ayna fanaanimada kaliya isku aamini karin ay shaqo kale ka shaqeeyaan adu taas waxaan ka wadaa fanaaniinta kale meesha doonaa ka soo jeeda ama wadankay doonaa ka soo jeedaan badankoodu waa milyaneero macnaha waxaan ka wadaa way ka faa'iidaan ee kuma khasaaraan marka inagu hadaan ka hadalno kuwa Soomaalida qof milyaneer ma jirade marka laga reebo muuqaalo lagu soo naashnaashay Photoshop iyo gabar lagu soo maribay make-up oo si bila macnaha uga dhex muuqata muuqaalka la duubayo ma jiraan wax xiiso gaar ah oo ku jira miraha heesta ee lagu hadaaqayo talbaan u qabaa codkaaga horjoog iyo daawadkaaga najaxay ku bartaa jacaylka walow fanaaniintii hore ay ku luuqeyn jireen miro suugaaneed oo dhaxalgal ah ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda haweentan ka doortay ayaa haddana fanaaniinta Dirisla Cabdi uu ku tilmaamay fa waxay soo bandhigaan dhaanto loo hugiyay magaca ha kaagana hay daaray